kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa Rio Ferdinand oo sheegay in Arteta uu ka tagayo Arsenal hadii Man United ay u yeerato intaan gudaha galin ka hadalka warbixintan waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto barta TikTok aad follow-deysiiso sidoo kale dirista jeer iyo wax ka badan aad daawato calaamadda copy link si uu dad badan u gaaro si la mid ah soo booqo bariga kale ee bulshada sida Facebook iyo YouTube aad ku maasantahay la socodkaaga la jaanqaadkaaga markasta maasanid daaficii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United Rio Ferdinand ayaa sheegay in tababaraha Arsenal Mikel Arteta inuu si degdeg ah uga tagi lahaa naadiga Arsenal hadii fursad loo siiyo inuu tababare ka noqdo Manchester United. Kooxda Arteta ayaa ku jirta qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo dhaliyay 25 gool 6 kulan oo xiriir ah oo ay badiyeen waxaana ay ka dambeeyaan kooxaha Liverpool iyo Manchester City. Tababaraha reer Spain ayaa hoggaanka u hayay Gunners tan iyo bishii December 2019 waxaana uu rajeynayaa inuu Gunners ku hogaamiyo horyaalkoodii ugu horeeyay tan iyo 2004. Inkastoo uu Arteta baadikoob ugu jirin shaqo cusub waqti xaadirkan Rio Ferdinand ayaa aaminsan in Arteta uu ka cariri lahaa shaqada tababarnimo ee Arsenal hadii fursad loo siiyo inuu bedelo Erik ten Hag inkastoo Man United ay ku jirto xaalad xun sida ay Daily Mail qortay Ferdinand ayaa yiri Arteta waxa uu ka tagi lahaa shaqada tababarnimo ee Arsenal si uu u qabto Manchester United boqolkiiba boqol shakiga ma jirto cidna ma oranayso waa wax dhacaya laakiin hadii Man United ay macsalaamayso Erik ten Hag ama ten Hag uu wareego Bayern Munich isla markaana Man United ay la xiriirto Mikel Arteta waan hubaa in uu Arteta ku oran lahaa Arsenal dhageysta waqti xiiso leh ayaan soo qaadanay laakiin waa inaan baxo Arteta ayaa hore u sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda waqooyiga London ee Arsenal mana uusan ku faraxsanayn wararkii sheegayay inuu u wareegayo naadiga Barcelona hadii uu ka tago Xavi Hernandez si kastaba haatee hadalka Rio Ferdinand ayaa waxa ku soo aadaya iyada oo Manchester United ay baadu goobayso tababari ay ku bedeli lahayd tababaraha waqti xaadirkan shaqada haya ee Erik ten Hag waxaana loo badinayaa in xilli ciyaareedkan markuu dhamaado Manchester United ay tababaro cusub u magacaawdo tababarihii hore Real Madrid iyo xulka qaranka Faransiiska Zinedine Zidane.